السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen nimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhawaada youtube-keenan Badiya Barri Channel. Wararka caawa idin hayno waxa ugu dooroon Mareykanka iyo aqoonsiga Somaliland. Trump oo khad kula hadlay ra'iisul wasaaraha India. ICE oo xidhay 640 gobol ka mid ah gobollada Mareykanka. Yurub oo dhaqaalaha ka hadlaysay iyo Mareykanka oo sheegay inuu waddan cusub ku daray wadamada aan iimaneyn Mareykanka. warar badan baan idin haynaa caawa. haddaan idinku horeeyo wararka caawa aan idin hayno wararka ka imaanaya Somaliland. Jamhuuriyadda Somaliland maanta waxay xusay 32 guuradii ka soo wareegtay ciidanka qaranka oo maanta lagu xusay Somaliland. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ka qayb galay xuska sanad guurada 32aad ee aasaaska ciidanka qaranka Somaliland. madaxweynaha uu halka hadal ka jeediyay bal waa kana ila yar dhageysta. يا مركز هوري تليها عيدا كه برياشة سراكي شوردن سراكي الكوكينكا دبليدا يقوي سكودة مناسبة دوين إلا بيصدق جورده عيدا كقرنك السلام يا مدحويني هي هوري كه وضنا الضاير يا كاهن قدوميها برلمانكا قدوميها محكمة حلبان قولها وسيرة تلياشا إذا ماذا قرأ كيك للدول تلياشي هراء مدحوينك حقيقة دي هراء يدمان مرتضى كسو غيب الشيء مناسبة وين غالقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت رنتي فرحة وين بيت هاي أنا يا شعبي Somaliland با إنه كسر غيب الله مناسبة ده أساسك أما دي بوا أساسك عيدا كقرن كجمهورية Somaliland وحكلهم هذا غيا سفارتها يو كان ندكي بدل كيتوبيا إنه ولا لها نهاي ciidamada qaranka sida la sheegay waxa la aasaasay asaaskii intii Somaliland u xorowday 1994 laakiin Somaliland taariikhdeedu inta way ka weyn oo way ka mug weyn tahay ciidamadii ugu horeeyay sida taariikhdu sheegayso ee Somaliland yeelato waxa la aasaasay 1914 waana ciidankii la oran jiray كامل كوردز أما كامل كورد كسمال لأنه تغني أورطة فولي شري أنت كدي بإنجليز كوفي نوسمي تينا حرنا ماذا قاعدنا سمال لان سكاوتس مركا عيدا كأنه هرو شري وقت قبل كلا يجا مدة بقول سنة كبدان بينه عيدا رجليه ولا يقارنها السنة سمال لان taariikhdeedu wax badan kaga noqon maayo laakiin markaynu gobonimada qaadanay ka yar kadib waxa iyaduna taariikh mudan in dhalinyaradii ku soo tababartay u badnaa dalka Ingiriiska iyo dalal kaleba ay qawadeen midnimadii aynu ku biirnay Soomaaliya waxaanay sameeyeen inqilaab inkastoo aanu guulaysan 1961 قوتكم ما تصب بالعب ماذا كايدك قرك wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay samaysato xiriir diblomaasiyadeed cid kasta oo ay doonto sida dawlad kasta oo madax bannaan. hadalkan ayaa yimid kadib su'aal ay BBC-du weydiisay Mareykanka oo ku saabsan wararka sheegaya in Israa'iil aqoonsatay Somaliland. Israa'iil xaq ayay u leedahay inay doorato cidda ay xiriir la sameynayso ayay tiri waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha India isla markaana ay ka wada hadleen dagaalka Ruushka iyo Ukraine.
arrimaha ganacsiga iyo tamarta. Trump wuxuu sheegay in India ay aqbashay inay joojiso shidaalka ay ka soo iibsato Ruushka, beddelkeedana ay shidaalka ka iibsan doonto Mareykanka iyo Venezuela, arrintaas oo uu sheegay inay cadaadis ku saari doonaan Ruushka. Sidoo kale, ciidamada socdaalka Mareykanka ee ICE ayaa bishii Janaayo xidhay 640 qof oo ku sugnaa gobolka West Virginia, kuwaas oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah dalka ku joogeen. Maamulka gobolka ayaa ammaanay habmaamuuska anshaxa iyo nidaamka howlgalka ICE ay fuliyeen. Wararka ka imaanaya Yurub, madaxweynihii hore ee Bangiga Dhexe ee Yurub Mario Draghi ayaa sheegay in nidaamka caalamiga ah ee dhaqaalaha uu dhintay, isla markaana Yurub u baahan tahay midnimo dhaqaale, midnimo difaac si ay ula tacaasho tartanka Mareykanka iyo Shiinaha. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha Norway ayaa dhaliilay hadallo ka yimid Mareykanka oo la xidhiidha NATO, isagoo carabka ku adkeeyay in midowda Yurub uu xoojiyo doorkiisa difaaca si loo ilaaliyo amniga guud. Wararka ka imaanaya dowladda Mareykanka ayaa cusboonaysiisay digniin safar 2026 iyadoo Niger lagu daray liiska dalalka heerka afraad ee loo safrayn sababo la xidhiidha khatar amni. Sidoo kale, boqortooyada Ingiriiska ayaa Itoobiya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan tamarta, shaqo abuurka, ganacsiga si loo xoojiyo horumarka iyo la dagaalanka tahriibka. Wararka ka imaanaya Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga Mustar Fiqi ayaa daahfuray Golaha Difaaca Qaranka, kaasoo diiradda saaraya isku duwidda hay'adaha amniga, dib u habeynta ciidamada. Sidoo kale, wararka baarlamaanka Soomaaliya naga soo gaadhaya, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo ciidanka booliska ayaa gacan hadal ku dhex maray kadib muran ka dhashay wax ka beddelka dastuurka, kaasoo sii kiciyay khilaafka siyaasadeed. Wararkaasi waxaan idinku haynaa fiidiyow ballan yar daawada waxa halkaa ka dhacay, sidii la isku laayay inantan dhaawac oo ka warramaysa wixii loo geystay. ayuu askari imaaday. askarta nagama hadashiinin, waxay nagu bilaabeen fiir iyo haraanti iyo dharbaxta. hataa ishaan hadda ilmeynaysa dharbaxti ukyaalihiiba ugu jibo dharbaxti. waxaa kaloo igu dhacday lugtana haraanti lugtii u sii ma aqaande wixii kale u wade, laakiin lugtu i dilaacday. waata istaalka aan jiifo waxa ugu beegsan meesha iska taagnayd shaqadeedan gudanayo baarlamaanka xilligii hadda shaqada ay bilaabanaysay meesha ma la joogin, marka meesha iska taagneen ka laaxay ugu dhahay. markaas aan ku dhahay meesha iska taagana shaqadeedan gudanaya ma xad rabtaa. markaas wuxuu ugu dhahay maanta waxaan oo la soo diray xildhibaankii qayli inaan kuleetiga qabano banaanka u bixino. markaasaan ku dhahay xildhibaanada ma xaq maad u leeyihiin inaa xildhibaan aad taabataan. markaasuu dhahay gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu soo amray xildhibaankii maanta ama foodo kiciyo ama aad dhaqaaqiisa si xun aad ka dareentaan inaad dishaan banaankana aad ku tuurtaan. dhaawac lugta iga gaaray, kabihiisa afka hore biro wateen buu haraanti iga dhuftay. ishaan hadda ilinta iga socotana ookiyaalihi anoo qabo ookiyaalihi igu jibiyey. iska kasoo aadana mana qaylinayna mana buuqan xilli baarlamaan uu furmay ma ahayn. baarlamaanku markuu furmaa la qaylan lahay Soomaa. shaqadeeda caadiga aan watay aniga xilliga baarlamaanka xildhibaano badan baa taa ma soo xarooninba. haddii waa un amar soo baxay Soomaa askari Soomaaliyeed iska markaa dilaa xildhibaan mogta xildhibaanka oo soo dilaa la dhahay. gudoomiyaha baarlamaanka soo xiray afkiisa ugu dhahay gudoomiyaha baarlamaanka maanta wuxuu ugu dhahay xildhibaankii qayliyo inta dishaan kuleetiga aad qabataan banaanka u tuura. askariga ugu dhahay marka waxa dilin de ani kelime xildhibaano badan waxa jirta haraanti iyo feer wiilal waxa jirta ay daba tuureen mikrofoonkii xildhibaanada ay ku hadlayeen ay ku daba tuureen dhulka ay ku dirideen jira. gabdho kale xildhibaanada hadda ila socoto naftinkeeda dharbaxti bay ku dhufteen. waxaan dareemayaa haraanti ugu dhuftay, xusul sidoo kale kilidu iga dhuftay, feer buu ugu dhuftay. ishaan saa ilmeynaysa waxay noqotay jug i gaarto waa ishaan way ilmeynaysaa ilaa ka socodsa arkaysin.
maxaa dalbanaysaa dhanka kale weli waxaan ku guda jirnaa Soomaaliya ee Mareykanka ma uu kan qayb gelin kulan ballaadhan oo lagu dhawaaqay guddida difaaca Soomaaliya. Kulanka waxaa ka qayb galay IGAD, AU, EU, Qatar, Turki, Shiinaha, Itoobiya, Kenya, UK iyo Canada. Sababta maqnaanshaha Mareykanka weli si rasmi ah looma shaacin. Sidoo kale Somaliland ayaa lagu soo warramayaa inay ka fiirsanayso magac bedel iyadoo loo jeediyey in loo bixiyo Republic of Markovia. Magacaas oo ka yimid dad khuburo ah oo u sheegay in Somaliland ay kala saaraan magaca Soomaaliya iyo Somaliland oo confuse ka qaaday. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in Somaliland muujisay xasilooni, dimuqraadiyad iyo maamul shaqeeya. Finland ayaa taageeraysa dood caalami ah oo ku saabsan xaaladda Somaliland, isla markaana ay diyaar u tahay inay kaalin hogaamineed ka qaadato arrintaasi sida gudaha Yurub. Sidoo kale madaxweynaha Somaliland markii uu maanta halkaa ka hadlo xafladda dhameeyey waxa uu u duulay Dubai oo uu shir caalami ah kaga qayb geli doono. Daawadayaal, war waxaan caawa idiin hayno waa naga intaa. Tan iyo intaan dib u kulmayno, habeennimo wanaagsan. Share, like, comment, please subscribe. Wala dahday ku dhufto baalka kor u qaada. Bye.